wafdigani ka socda xafiisyada qaramada midoobay gaar ahaan UNDP, UN Habitat iyo waliba sidoo kale hay'adda socdaalka adduunka ayaa waxa magaalada Jowhar xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka kuwa oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan wasiirada iyo xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabelle. waxa ay kala hadleen madaxda Hirshabelle waxa ka qabashada fatahaadaha webiga Shabeelle ee saameynta ku yeesha nolosha beeraley fara badan, arrimaha amniga iyo waliba sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada ku dhaqan deegaanada Hirshabelle. waa kan afayeenka madaxtooyada Hirshabelle Daawud Xaaji Cirre oo ka warbixinaya kulanka maanta iyo waliba ujeedka socdaalka wafdiga. waxa maanta inoo yimid wafdi ballaaran oo hay'adda qaramada midooba ah UN-ka. wafdiga waxa hogaaminayay ninka ugu sareeya UNDP oo dhawaan la magacaabay. safarka uu ku yimid magaalada madaxda Hirshabelle ay tahay safarkii ugu horeeyay oo magaalooyinka uu ku tagay. waan kaga mahadcelinaynaa. safarkiisa waxa ku weerinayay gabadha ugu sareysa hay'adda IOM-ta iyo wakiil ka socday UN Habitat. waxay runtii ay soo gaareen magaalada Jowhar waxaana qaabilay oo soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle iyo xubno labada gole ee dawladda ah. kadib waxa ay kulan la qaateen madaxweyne ku-xigeenka waxayna sidoo kale ay kulan guud ay wada yeesheen golaha wasiirada. shirkaas oo shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle. kulanka golaha wasiirada intii uu socday waxa runtii aad looga hadlay baahiyaha guud ee dawlad goboleedka Hirshabelle. ugu horreyn waxa laga hadlay qodobka amniga, kordhinta tababarada ciidamada booliiska ah, dhisidda saldhigyo iyo dayactir saldhigyadii hore. sidoo kale waxa runtii laga hadlay qalabaynta ciidamada ama isgaarsiinta qaabka isgaarsiinta oo kale iyo gaadiidka. cadaaladda laga hadlay waxa aad loo falanqeeyay dhisidda xabsiyada, tababarida garsoorayaasha, xoojinta maxkamadaha wareega, qalabaynta maxkamadaha iyo xeeralinta heerarheeda kala duwan. sidoo kale waxa looga hadlay arrimaha beeraha maadaama dawlad goboleedka Hirshabelle waxyaabo ay ku tiirsan tahay beeraha ay ka mid tahay ka hortagga fatahaadaha ayaa aad looga hadlay iyo caratuurka in lagu sameeyo wabiga. qodista kanaalo ayaa sidoo kale laga hadlay in beeraleyda la taageero kale. marka kulanka golaha wasiirada iyo maaragtay ermaas ayaa looga hadlay. kadibna baarlamaanka ayay kulamo la qaateen. guud ahaanna kadib waxay shir guud ay la qaateen qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka ah ay wafdigii inoo yimid ee UN-ka madaxii UNDP, IOM-ta, UN Habitat kulli kulanka ay wada qaateen. madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaana maaragtay kulamadaas oo dhan mataqaanaa hormuud u ahaa. marka socdaalka wafdigan ayaa waxa uu imaanaya xilli toddobaadkii ugu dambeeyay madaxda Hirshabelle kuwooda ugu sarsareeyay intooda badan ay ka maqnaayeen xarunta Hirshabelle ee Jowhar, isla markaana haatan ay dib u bilaabanayaan imaatinka wafdiyada noocan, isla markaana iyagana ay ku xiran yihiin imaatinka madaxda Hirshabelle inta badan socdaaladooda ay ku badan yihiin dhanka magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Aadan Xuseen Daawud, SAB TV, Jowhar.